Assalaamu calaykum. Waa walaalkiin Muwaarig Maxamuud Saleebaan iyo channelkeennii Toyoton Media. Waxaynu halkii ka sii ambaqaadi doonaa taariikhdii taxanaha inoo ahayd ee dowladdii Cabbaasiyiinta. Waxaynuna ku guda jirnay taariikhdii Muctasim binu Haaruun. Qaybtanina waa qaybtii saddexaad. Qaybtii horena waxay noo joogtay Muctasim oo dadkii weydiiyey magaalooyinka Roomaanka kuwa ugu muhiimsan uguna xoog badan. kadibna waxa loo sheegay in magaalada Camuuriya ay ugu muhiimsan tahay sidii islaamku u soo baxayna aan magaaladaas far la saarin isla markaasna ay tahay magaalo kristaanka indhihiisa ah oo ay xitaa magaalada Qustandiniya ka jecel yihiin markaas ayuu Muctasim wuxuu go'aansaday inuu magaaladaas ku duulo haddaba maanta waxaynu ka sii ambaqaadi doonaa furashada magaalada Camuuriya haddaba daawadayaal intaynaan muuqaalkeena gudagelin fadlan haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir oo subscribe saar sidoo kalena gambaleelka yar furo si aad ula socoto muuqaalada dambe soo gelin doono annagana ay noogu noqoto dhiirigelin ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta gugii 223 ee hijriga ayuu Muctasim duulaan u baxay wuxuuna hore u walwaashay wixii uu hub iyo ciidan heli karayay ciidanka gaadada horena wuxuu u magacaabay sarkaal la oran jiray Ahnaas wuxuuna ku xijiyay sarkaal la oran jiray Maxamed bin Ibrahim baalka midiga ciidankana wuxuu madax uga dhigay sarkaal la oran jiray Litaaq baalka bidixna wuxuu u dhiibay sarkaal la oran jiray Jacfar bin Diinaar waqtigaasna yoolkoodu wuxuu ahaa inay duulaankaas ku galaan labada magaalo ee Roomaanka ugu muhiimsan kuwaas oo kala ahaa magaalada Ankara iyo magaalada Camuuriya waqtigaasna Muctasim wuxuu soo jeediyay in marka hore magaalada Ankara gacanta lagu dhigo marka xigtana magaalada Camuuriya la soo wareego haddaba Muctasim markii uu dhulka Roomaanka galay wuxuu ku hakaday meel u dhow magaalada Tarsus wuxuuna hore u sii diray oo iska horeysiiyay ciidan uu wato sarkaal la oran jiray Afshin bin Khaydar oo ahaa sarkaalkii isagu dagaalkii ninkii la oran jiray Baabiig soo afjaray sidoo kale Muctasim wuxuu diray sarkaal kale oo la oran jiray Ahnaas wuxuuna amar ku siiyay inuu ciidankiisa ka haysto dabadeedna uu ku hakado oo ku sugo marka uu gaadho meel la yiraahdo Safsaaf Muctasimna 2 maalmood kadib ayuu ka daba guuray haddaba markii uu Muctasim soo gaadhay ciidankii Ahnaas hayaankoodii ayay sii wateen oo dhinaca magaalada Ankara ayay afka saareen waxayna degeen meel magaalada Ankara 3 geedi u jirta haddaba markii ay halkaas degeen waxa soo gaadhay war sheegaya in ciidankii sarkaalkii la oran jiray Afshin uu watay ay footaystareen ciidan uu wato boqorkii Roomaanku ciidankii Afshinna ay ka adkaadeen ciidankii boqorkii Roomaanku uu watay boqorkii Roomaankuna waqtigaas cararay haddaba xogtaas markii ay soo gaadhay Muctasim aad ayuu ugu farxay dabadeedna ciidankii muslimiintu way sii guureen oo magaalada Ankara ayay dul degeen muddo kooban kadibna sarkaalkii la oran jiray Afshin ayaa dhambaal u soo diray Muctasim una sheegay inay ladan yihiin ayna magaalada Ankara ugu imanayaan amiirka mu'miniinta ee Muctasim Afshinna sidii buu yeelay oo isagoo ciidankiisii oo soo guulaystay wata ayuu u yimid oo magaalada Ankara dusheeda ugu yimid dabadeedna waxay xoog kula wareegeen magaalada Ankara bal haddaba aynu u nimaadno dhinaca duulaankii magaalada Camuuriya lagu qaaday haddaba markii ciidankii muslimiintu ay la wareegeen magaalada Ankara waxay isu diyaariyeen sidii ay ku qabsan lahaayeen magaalada Camuuriya sidaas awgeedna ciidankii 3 gaas baa loo qaybiyay oo kala madax bannaan gaas walbana abaanduulihiisu uu wato 3 gaasna waxay kala ahaayeen gaas uu Muctasim wato oo qaybta dhexe lagu aadiyay iyo gaas uu Afshin wato oo lagu aadiyay baalka midig iyo gaas uu wato sarkaalkii la oran jiray Ahnaas oo lagu aadiyay baalka bidix 3 ciidanna waxay isu jireen fogaandhan 3 mayl intaas kadibna Muctasim wuxuu ciidankii amar ku siiyay inay dhammaan tuulooyinka u dhaxeeya Ankara iyo magaalada Camuuriya dhulka la simaan oo la wareegaan wixii dad ay qabtaan ay maxaabiis ka dhigtaan oo soo kaxaystaan si maxaabiista hadhow muslimiinta laga qabsado ay ugu soo furtaan aynu u nimaadno dhinaca godoomintii magaalada Camuuriya haddaba 3 gaas waxay isku soo gaadheen magaalada Camuuriya markaasuu gaas waliba qayb magaaladii ka mid ah hareereeyay oo dhinac walba waa laga xidhay magaaladii oo wax soo gala iyo wax ka baxaba waa loo diiday magaalada Camuuriyana waxa ku wareegsanaa derbi dheer oo aad u adag oo aan ciyaar lagu geli karin kadibna wuxuu alle weyne keenay roob lixaad leh waxana nuglaaday meel derbigii magaalada ku xeernaa ka mid ah waxana xogtaas helay nin muslim ah oo gaaladu ay waa hore intay soo qafaasheen kristaan ka dhigeen laakiin weli diintiisa aan nicin ee qalbiga ku hayay ninkaas ayaana muslimiinta u soo sheegay halkaas nuglaatay ee derbigu ka jilcay dhinaca kalena boqorkii Roomaanku wuxuu u cararay magaalada Qustandiniya kadib markuu ogaaday in derbigii inuu meel ka soo dumay
markaasaa boqorkii Roomaanku guddoomiyihii magaalada fariin u soo diray oo ku amray inuu meeshaas degdeg u dhiso. markaasaa guddoomiyihii magaaladuna dhisme fudud oo degdeg ah ku sameeyey halkaas jilicday. haddaba Muctasim wuxuu u rakibtay majaniiqyadii waaweynaa ee waagaas loo isticmaali jiray madhaafiic ahaan, markaasuu meeshii nugleed la dhacay oo ku dumiyey. markaas ayay Roomaankuna waxay bilaabeen inay hadba meeshii la dumiyey alwaaxyo iyo alaabo kale ku soo gufeeyaan. aynu haddaba u nimaadno hanashadii magaaladaas Camuuriya. maalintii saddexaad ee dagaalka markii la gaadhay ciidankii muslimiinta waxa u suurto gashay inay meeshii daloolka ahayd sii ballaadhiyaan. dagaalkuna muddo ayuu socday. ciidanka Roomaankana dhaawacyo badan ayaa soo gaadhay. saraakiisha ciidanka Roomaankuna goobaha difaaca way kala qaybsadeen oo sarkaal walba waxa lagu qaybiyey aag uu difaac ka galo. aagga meesha dalooshantay ku beeganna waxa ku qornaa sarkaal ka mid ahaa ciidanka Roomaanka oo la odhan jiray Wandawaa, oo afka Carabiga macnaheedu noqonayo dibi. sarkaalkaas iyo ciidankiisuna si adag ayay u dagaalameen. habeen iyo maalinna dagaal baa ku socday, iyaguna difaac adag ayay galeen oo intaas ciidanka weerarka ah way iska soo waabinayeen. dagaalkuna 3 maalmoodba wuxuu ka socday aagga sarkaalkaas oo muslimiintu habeen iyo maalinba ay weerar ku hayeen. ciidanka sarkaalkaasina way mintideen, wax gurmad ahna kama helin saraakiishii kale ee Roomaanka. kadibna markii ciidankiisii dhaawacyo soo wada gaadheen oo meesha lagu cidleeyey ayuu u tegey saraakiishii kale, wuxuuna u sheegay in isaga iyo ciidankiisii 3 maalmoodba dagaalku ku socday oo ciidankii ay wada dhaawacmeen. sidaas darteedna wuxuu ka codsaday inay caawiyaan oo gurmad u soo diraan, haddii kalena ay ceebi dhacayso oo magaalada la qabsanayo. markaas ayay saraakiishii Roomaanku ugu jawaabeen, warniyahow aagaga waynu kala qaybsannay oo nin waliba aaggiisa ayuu difaacanayaa, annaguna aaggayaga ayaannu difaacanaynaa, wax gurmad ahna kuu soo diri mayno, ee aaggaaga ama difaaco ama dhiib. haddaba marka xaal halkaa marayo, markaas ayay isaga iyo raggiisii go'aansadeen inay amiirka muslimiinta isu dhiibaan oo naftooda iyo maatadooda ammaan u weydiiyaan, qalcadda iyo wixii yaalna ay ku wareejiyaan. kadibna markii waagii baryey ayaa sarkaalkaasi ciidankiisii ka tegey, wuxuuna aaday Muctasim. markaasuu Muctasim qorshihiisii u sheegay, ammaan ayaana la siiyey. Muctasim ayaana ku yidhi, sheego wixii aad doonaysid waa lagu siinayaaye. haddaba markii uu sarkaalkaasi booskaa banneeyey, ciidankii muslimiintu gudaha ayay u galeen magaaladii Camuuriya. sidaas bayna muslimiintu kula wareegeen magaaladaas. dadkiina maxaabiis baa laga dhigay oo meel ayaa la isugu geeyey. magaaladiina wixii hanti taallay, wixii laga qaadan karayey markii laga qaatay, dab ayaa la qabadsiiyey. dabadeedna muslimiintii magaaladii ayay ka guureen. haddaba aynu u nimaadno isku daygii dil ee la doonayay in lagu dilo Muctasim. waxaa jiray qolyo saraakiila oo damacsanaa in ay shirqool ku dilaan Muctasim. saraakiishaas shirqoolka wadayna waxaa ka dambeeyey oo soo abaabulay Cabbaas binulma'muun, oo isagu ahaa wiil uu dhalay Ma'muun oo doonayay inuu isagu talada la wareego. haddaba ciidankii markii uu magaalada ka baxay oo hantidii mood iyo noolba meel la isugu geeyey, ayay qolyihii shirqoolka watay waxay ku heshiiyeen inay shirqoolkooda fushadaan oo Muctasim dilaan. si taasi u fushana, sarkaalkii la odhan jiray Cashiif ayaa ciidankii ku amray inay xoolaha boobaan. dabadeedna marka warkaas loo qaado Muctasim oo uu goobta yimaado, iskuna dayo inuu ciidanka celiyo halkaas si gaadma ah loogu dilo. kadibna markii sidii dhacday, ayuu Muctasim faraskiisii soo kaxaystay oo ciidankii wax boobayay u tegey. markaasay boobkii joojiyeen. nimanka qorshaha maaganaana waa ay fashilmeen oo ninkii loo xilsaaray inuu Muctasim dilo ayaa isbedelay oo ka baaqsaday qorshahaas. saraakiishii kale ee la doonayay in la dilana waxaa ka mid ahaa Ahnaas iyo Afshiin, oo iyagu ahaa rag qiimo badan oo madaxweynaha muslimiinta daacad u ahaa. shirqoolkaasina waa fashilmay oo rag baa sirtii u sheegay Muctasim. markaasuu Muctasim amar ku bixiyey in dhammaantood lasoo wada qabto. ragga lasoo qabtayna waxaa ugu horreeyey Cabbaas binulma'muun, oo isagu ahaa ninkii shirqoolkan dabada ka riixayey. haddaba markii la gaadhay habeennimadii, Muctasim ayaa waxa loo keenay Cabbaas binulma'muun, wuxuuna wakhtigaas Muctasim u sheegay in Cabbaas layska cafinayo haddii uu u sheego saraakiishii qorshahaas la waday. markaas ayuu dhammaan saraakiishii hawsha la wada sheegay. ragga uu sheegayna waxaa ka mid ahaa koox saraakiil hoose ah oo ay ka mid ahaayeen Camr al-Fargaani, Axmed binu Khaliil, Cajiif binu Cambasa iyo Shaah binu Sahal, iyo rag kale oo fara badan. dhammaantoodna waa la soo qabtay. siyaabo kala duwan ayaana loo dilay. Cabbaas binulma'muun baana ka mid ahaa dadka la dilay. haddaba Muctasim oo sidaas gaaladii muslimiinta ugu soo duushay uga soo aaray oo dhulkoodii cagta soo mariyey,
dad iyo duunyana ka soo dareersaday ayay doonayeen inay abaal uga dhigaan inay dhagraan oo dilaan. laakiin alle ayaa daacadnimadiisa ku badbaadiyey kuwii shirqoolka wadayna adhaxda ka jebiyey. haddaba wuxuu Muctasim soo laabtay isagoo badbaaday, soona guulaystay oo cadowgii muslimiinta soo naafeeyey, dhibaato xunna soo gaadhsiiyey. Muctasimna had iyo jeer wuxuu ahaa nin heegan ku jira oo mar walbana diyaar u ah inuu dhulka muslimiinta difaaco. sidii aynu hore u soo aragnayna waa tii uu soo abjaray fidnooyinkii ka dhex jiray gudaha dowladda. haddaba daawadayaal, muuqaalkiina dambe haddii eebbe idmo halkaas ayaannu ka sii ambaqaadi doonnaa. maantana halkaa haynoogu joogto. wasalaamu calaykum.